fiican markan xukuumadooda meesha ay timid runtii wax xiriir oo ka dhexeeya gobolada iyo xukuumadda ma aysan jirinin anse mararka qaarkood waxaa ka dhexeeyey dhibaato labada baa ka dhexaysay oo waxa lasaga jawaabay idaacadaha waxaa la qabanaya shirar kala goongooni ayaa la qabsanayay markaan imid waxaan ogaaday waqtiga yar aan haysano challengeska iyo dhibaatooyinka waddanka yaalla hawshan loo taalla baxadda ay leedahay markaan eegay waxaan ogaaday sida kaliya oo laga bixi karo dhankaas inay tahay midnimo iyo wadajir iyo Soomaalinimo taas ayaa keentay marka inaan soo dhaweyno gobolada xiriir fiican la yeelano waa tala socotaano markaas aniga iyo madaxweynaha iyo madax kale oo dhanba waxaan ku tagnay boqoshooyin gobollo badan oo Soomaaliya ka mid tahay Puntland Galmudug Hiiraan Bakool iyo Gado marka in la soo keeno bulshada Soomaaliyeed ay mid noqoto hal ujeedan ay yeelato hal itijaar ay yeelato si loo guuleysto taas sheegtay marka taa waxa ugu dambeeyay waxa weeye inaan xiriir la sameeyno xukuumadda Somaliland oo aanu ka tashano sidii aan isugu imaan lahayn sidii afgarad iyo wadajir aan u wajihi lahayn caqabadaha jira